أنا قلت مركي أحد سيدك ما سأو بدله إسلا شيء كذا يغيدروا فيه وكل في شيء وحلا رموز بمربع قبل ياقو حبو بعضها ظروفها هذاك بالكلون يعني رموز بو بعضها إنه وحكو شاكو مركا وحق ما صار ألقوا إسلا شيء كذا أنا قلت السياسة دوجت شيء ده أيام لكن سيد إتباع دافين يدا يقول فلاتي سيد أيدي شكرا يقول شكتي أيوم بقى نقول له شكل طبعا نقول لك وخلاص صباح يوم خلاص صباح وبعدين صومالي بعدين عليه برجاز واسديتك واحد حاجة مركز أنا ما صيد آخره سيد هو إسلا شكل يقول وحلا جربا فربيتم وحصلوا مرة قبلها بري قلب على ذوق جيد وفليت شري sheeko kooban kaga guray wuxuu yiri guyaal hore boqorkii salaad jiray oo goostay waligii ilaa inta lagu garan fule waagadiise wuxuu goorba hubiyo gedfo oo cumaamado galxiir baa sirtii helay godob buusa taransaday garashadu u sabab tahay nin gafaana laga dhigay hadduu gaabsan waayana inuu gowrac jira maqal hadba giirka loo kici goldololadu helay inay gudubta loo diiday isla waa gartiisay walguntabay la foolqaan hadba gaarka meel dhigay goobyaalka leylkii kolkay gama iswaayeen goli dhexe rugtiisiyo gurigii ka soo bood gudcul beegsay duurkiiyo geliya dugaagale wuxuu gabi dhacleeyaba kolkii waagu galac yidhi geed hoosti faadfaad sida bahal goddeel quday dabadeed gafuurkiiyo gadhka ciidda saariyo goofkii sirtuu helay gaagaabsi ugu sheeg dunucdiina gaadhsii inuu boqorka goojaa madax goodir leeyahay markaa basaas yar baa soo maray oo qoladii warka qaadi jirtay markaas waxaan haday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeka bari la ii kala yu qaadi baa sheeka hadii haday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeka bari la ii kala geesigu warkiisi ku caburay kolkuu galay darbihiisa laga duul gabigiis fudayd duqoy goobtiina aasiyo ka hurgufay guriisii galbay oo ka sii socay ka gadaala meeshii laga goortii roob helay geesaa ka soo baxay maasadaas oo iyaduna isla sheekada kaaga sheekeeya haddaad istiraahdo akhri waxaa laaga baahan yahay inaad verbatim u akhrido labada unbaa ku kala sheegaya yani waaya tixdu waxay kaloo leedahay wax la yidhaha xaraf raac oo ay kaga duwan tahay tiraabta waxay leedahay wax la yidhaha xaraf raac waxa weeye alliteration bay leedahay tixdu waxay leedahay alliteration waxaa la yidhahdaa afgirisa lagu yahay alliteration waxaynu afafka kale kaga duwan lahay aynu dir shalay baan qolo macallimiin u sheegay afkeenu wuxuu ku yaala horta waxa anigu eegay afkeenu wuxuu ku yaala geeska bari baynu ku lahaa geeska bari waxaynu xad la leedahay Djibouti oo iyadu waa Soomaali bay ku hadlaan laakiin se Djibouti ta afar baa ku nimanka afar markaan xuduudaha iska dhaafo dadka Soomaaliyeed baa ka hadlaya waxaynu xad la leedahay dadka afka Soomaaliga wuxuu xad leeyahay afar ولعفك يا أوروبا أيو بلع كجليه يا بورن يا ساهول نمك الله يلاهو كلون حقائد كوفوت أفريقيا ريد الله يلما وما كان أفك الصوماليات كهذه وحل اللي هي تابطة وحل ولا هي أفك اللي كوشتك حتى أم حالك حل بالهيد حد بينور حي ولا ما ينور حيسا الصومالي يقول أم حالك لو هو قبضوا كسودوا لي لو قدموا أنت وتشوغا لقى هذا ما كان حاجة سيء قبائل كيسوب البريالان ولا ما حل له الصومالي ولا بدأ حل له عفتا حل له حل له إلهي بيتي ستاي أففك لنا كوشتك أي حل له الصومالي أففك كوشتك أفضل حيو وحد يجا حد له أففك كوشتك وحد كوشتك عندي لا نقول وحد وجه ده أفك الصومالي marka afafka loo sii abtiriyo afka Soomaaligu wuxuu la baahayahay afafka xadka la baahaya
oo loo yaqaano kushitika waxaa ka mid ah afka Soomaaliga oromada afarta saahuuga booranka reediilaha waxay saahuugu wuxuu ku yaala waxa ku hadla dad yar oo ku nool waqooyiga Kenya oo Soomaalida hadla leh marka abtirsato kushitigu marka uu si abtirsigado saahuuga ugu dhow abtirsibaha afka Soomaaliga ugu dhow ay isku sii xigaan oromada marka lagu abtirsiibada marka laga hadlayo afka laga hadlayo waxa laga hadlayaa dhismaha erayada mar waxa xagga erayada waxa uu ka wadaagnaa baadaygiisa oo loonay afafku waxa isu kala xigaan mar waxa sabab siyaabaha isu kala xigaan waxa kamid ah mar waxa adeegaysaa inta eray wadaagaan baadaygiisa mar waxa adeegaysaa qawaacidka sida garaamarkooda u sameysmo ay isu kala xigaan oo afafka oromadu afafkaasi xagga qawaacidka marka sida eriyadu isu bedbedelaan marka ka hadlayso waxa jooga iyo waxa maqan iyo waxa soo socda aan kala dhigayso sida ereygu falku isu bedbedelo si isku midab uu isu bedbedelaa afafka isu dhow oo sidaas ay isu xigaa kuwa kale waxa isu xigaa xagga ereyada waxa isu xigaa xagga qawaacidka ereyada marka dib ka tirada qaato tirada dib ka dib afarta yaba ay lagu leeyahay oromada oo waa u fiirsataan isku wada mid bayna oo marka imika oromadu ay tirayso 20 markuu ka bilaabo xaq oromada qaar bay iska badan bay iska mid tahay markuu 20 ka bilaabo 20 sadab sodom afartam shantam lixdam afartu oromadu waxa oranaysaa afartam shantam iyaga inaguna waxa leeyahay afarta ka seen u socono ayuu baynu Soomaaliga oranayna konton كنتو كاير اقدر هذا واحد اللي شبوها حق هوريه اللي كانوا لما صدح شبه هيدي انا ما دي حاجه عقل ما يكون لنا سؤال بس يقول تودي شلتم بيتيلين الا هو واحد اللي كنتم سببتي والو markaan sababta baan qodoyada afka waxa ka shaqeysaa sababtii waanu helno wax kala baa waxa weeye waxaynu ka taluulini afarta oo inaga qoro abaayaduna sidaa u tirisa afarta loo wadaagna kontonka oo iguna 20 40 kontonka laakiin sayagu maxay halkay farqi ka leeyihiin inaga iyo oromadu 5 waxay u dhaqaanaa 5 laakiin saxaafatu waxay u taqaanaa kone waxaan caawa jecelahay caawa halka jilaabariji u caawa halka waxay u yaqaanaa kone 5 konadoodii baa markay gaadhaan de xageer dambe konton noqotay inaguna wayna wadaagnay إذا قلوا له ذاك كنتك وقرع هكاك سوق علي أفرتوا إلى سوق علي كنتك لكن شنطب كانوا على بينك واحد سيد عادي شنطب كانوا هاي نقطة ولا شنطب وهي هاي مركا أففك وحيجي من ولا تبقى لكن تبقوا وهذا تبقى الموت تبقى كان لي ما وضع ترست يقولي ووضع ترست يقولي لكن زميل كي ما هالو سعودي waxaad qaadataa afkeeda marka uu gabayga la tirinayo alliteration baa iigiye hadalka alliteration baa iigiye marka la tirinayo ereyada alliteration ka la tirinayo afka Soomaaligu wuxuu ka bilaab waxa leega xarfo isku ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa tixdu leedahay ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayay leedahay ay leedahay afka Soomaaliga marka la gabayo ay soo qaadanaysa oo aad tirinaysa marka waayahay lixdan wuxuu yiri labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin nin labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin lixdan nima yu fooftiyo nima leeyli raadaynin bar haddaan laba la salay waxa uu laaqaya maxaa kaga lulmoodaa adduunba iyo weeyaan nin baa ku gabiyanka laam leebu tatriya su'aalka baysi xarafka uu ka socdaa waa erayo buu qaadanayaa laam ku wada bilaabma marka laabkii halkeen laga rabaa waxa laga rabaa inuu eraygu ku bilaabo nin 20 wiiliyo lima wali lamaanaalin lixdan lima u footo iyo lima layli laabkiiba ku bilaabaysaa maxaa maradaali laba la salayd waxa uu laacaya la xarfahu
inaga wuxuu xarfo isku mid ah bay erayadu ku bilaabmaan imika gabaygan qaatay waxay ku wada bilaabmaan lam bay ku wada bilaabmaan waa inuu sidaa raaco alliteration baa la yidhaahaa gabay maase kasta waa inay taa raacdo laakiin se afafka kale oo ay kuwan aynu dariska lahay ka mid yihiin aan idiin sheegay oromada iyo cafarta iyo ay ka mid yihiin kuwa aynu isku dhownahay iyo kuwa kale aan maqasheen oo dhan oo aan isla yeeshuushkuna waa ka mid carabida ingiriisiga talyaaniga xagga dambe erayo xagga dambe wuxuu ku dhamaadaa gabaygoogu erayo xarfo isku mid ah buu ku dhamaadaa eeg keenana waxa weeye xarfo isku mid ah buu ku bilaabmaa eraygu waa weydaan waa isweydaan inagana xarfo isku mid ah ayuu ku dhamaadaa oo xagga dambe ayuu ka raacayaa marka uu ka raacaya baanad sucaadu faqalbiya alyawma matbuulu kacab ibnu zuhayr waxaa sultaan markuu akhriyay qasiidadiisii nabigaa ku dilaya kolkii lagu yidhi calayhi salaam gabayaaga weyn waa kii ahaa kacab ibnu zuhayr ibn abi salma qasiidadiisii dee cajiibka ahaydee uu nabiga ku beernaxawsanayay markii la yidhi waa lagu dilayaa baa nabigaa la yidhi walaalkii bajiir ibnu zuhayr ibnu abi salma ayaa yidhi waan waxba kuma yaalaa nabiga agtiisoo nabigaan caynaa baa la yidhi oo wuxuu banneeyey dhiiggaagii buu xalaaleeyey ahdara dambaka baa la yidhi qasiidada madlaceedu yahay baalad sucaadu فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول قصيدة كبلا بطا وكورني إقلام بكونا ما ليس أقول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل إقلام بكونا ما ليس لا بكونا ما ليس إن رسول الله أنبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول لا تؤاخذني بأقوال نشاتي ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل إن رسول الله لسيف يصداء به مهند من سيوف الله مسلول وحكى دبو خير قليا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول إغلاب كان هلكم قليا لاب كانوا حقي دبوك قليا laabkeedii kalena adigoo lugooyaa waxaa lugiya mooyaane weligiiba liibaan ma helin wili laasibay xaggan u dekana gelaya waxaa la yidhaahdaa qaafiyad baa la yidhaahaa midna qaafiyad baa la yidhaahaa afcariga fiisana waxaa lagu yidhahaa raim baa lagu yidhahaa keenana waxaa la yidhahaa alliteration oo xagga horu gala marka igu soo celi haddaba maasadii soomaaliga inadala ee aan lahaa tixdiya tiraabtu maxay ku kala duwan yihiin tixdiya tiraabtuna bal waxay ku kala duwan yihiin in midna la soo xigto midna aan la soo xigan ta labaad waxay ku kala duwan yihiin tixda soomaaligu waxay leedahay xaraf raac haddii xarafka laga baxo wuu jabaysaa maasadu way jabaysaa haddii xarafka la raac kow xarafkuna halkaa waxaa ku sii jira yaa ilaahay waxaana sii geli karinoo xaraf raacaasaa isaguna bad ah xaraf raacana shuruudo fara badan leh oo maxay markuu mahmaahda raacayo markuu lamaanayaasha raacayo markuu raacayo gabatixda markuu raacayo iyo sida loo sameeyo xaraf raacana isaguna adag oo dhibba eeg xaraf waxaa lagu yidhi eeg ninka la yidhi waxay itixaam ku tahay xaraf raacu xaraf keliyaa lagu odhanayaa qaado oo af soomaaliga ku jira af soomaaligu waa 230 xaraf waxaa lagu leeyahay xaraf keliya raac haddana ha ka bixin ujeeddada macnaheedu markaa waxaa lagaa rabaa inaad hodar tahay hodar afka inaad hodar waa inaad haysato faakabolirigaagu matalan haddaad gabayga ha ka gabayso waa inaad haysato kiishnanoo wada ha aadi haddii kale waa badxina waad soo xidhmaysaa oo waad xidhmaysaa oo waxay kula gelaysaa af carabi bay kula gelaysaa ayaa fidibi oo waxaad arkaysaa ninkii oo carabi midha ku rafanaya markuu af soomaali waayo ayaa carabi midha kaaga rafanaysaa ay kaaga rafanaysaa qaarada waxaabay ku tiriyaanba oo dadka af carabiga u baydhahdaa af carabiga ku yala badayay af ingiriisigu waxa ku muuqanaysa hodanimadii baa ku yar oo xarafka la yidhi ka hadal ayuu ka waayayaa xarfo badan kolkaasuu kelmada carabiga iskaga yara bishlaya ama mid kiro hindiya hadduu de hindiga oo helana wuu bishlaya waa iska horayn oo uu gelinaya qalaba isu gabiyey reer miyiga reer magaalka isu gabiyeyo kolkaasaa
reer baqalada af ingiriisiga baratay bi abaya fitra oo biiga u kacay ayaa ilaa reer bi istridaa'in yara ishaqso oo ay u haystay markaas waxay ku tidhi halka aad ka soo bood ciyaarta soo waxay isleedahay ka yeelay dhul dhaxda suuqa ka xidhan aw beedka aan la kacay dadbaystay markaas waa laba tuulay u sheegaysaa waxay tidhi kurtiriyo kolba caday kurtir iyo waa laba magaal waa laba tuulo kurtiriyo kolba caday waxay tidhi kurtiriyo kolba caday waxay tidhi kurtiriyo karuurey bay tahay kurtiriyo karuurey ayaba kolba u dhow bay tidhi waa tuulo kale inankii reer miyiga waxa loo magaalo shaydaan ay tirinayso tuulooyinka wada kaada buu ka wareeray markaasuu sidii alwaata ku xidhay dab xal samaysaa af badan ku hadli maayo af magaray wuxuu sidii iyadoo daaf giraasiga ay qoon af giraasiga ku badayso wuxuu yiri often ways ka always buu often wuxuu yiri often ways ka always arfay bay u dhowdahay kawdi ingiriisi niman professor way ku adag tahay buu kawdi hadduu afku ka noqdo soo way ku adag tahay waa mashaakil oo aad xarafku kugu adkaado aad soo way ku adag tahay seerka ina afgiriiska u yaqaana haday ka noqoto waagta waxa higaadu xarafraacu wuxuu ilaaliyaa wuxuu cadeeyaa hodannimada qofka gabayaaga ah oo waxa la doonayaa xaraf kaliya isaga oo ka bixin marba waxa kugu soo baxaysa qolooyinkiina isku dayday higaada imika qaar way halka way fadhiyaan baa laga yaabaa isku daydayaya fagiila bilaabayo waxay ku marba kalmad markaad beedkii soo yara dhisto ayaa waxa kula kulmaysa kalmad baa kaga macaanaanaysa mashi aan xarafkii loo baahnaayde ayaa markaas si Allah si aad u duda garan waysa kalmad xarafkii ku galimayso markaas ay barbarkii qaar carabi baa kala baan ila ducaanaysa marka ducaashay ku gabagale laba ducdo walaga hada ducato ixtiraaho saala yari ka soo noqday gabay baa marka raga qaar balaag waxa dhigta ninka gabagiisa barinayay laha rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi ninka laha meen buu ka gabayay markaas waxa soo gashay wuxuu siiri dhaaro oo wuxuu duliya wallahi billahi tallahi buu siiri wallahi billahi tallahi midkii u galibaysidii xagabay uga socdaan waa miilay rag waxa ku maamulay qaranba ku maamuusi masayna loo tolo ma martan loo tahay wadaalkii ligeelo waa ka gabagalay markaas wuxuu siiri dhaaro ma gaba saddexdii markaas duu garaway wallahi billahi wuxuu yiri saddex magac alle xaajada la iman marisiye buu balagada xaqu kaga yibi intuu iska wada tulay wallahi diya billahi di ayuu miinkiisu u galay u dhaartay ninkii u dhaartay saddex magac alle xaajada la iman marisiyo farshaxanka bulku halku ugu tagay daawo si uu miinka ugu si aanu miinkii ugu bixin ayuu wuxuu soo qaatay khayaalkiisii magac saddexdu waa magac ilaahay buu markaa magac baa u soo baxay beeshi waxa uu ka hadlayaa waa magac ilaahay magac hada waa magac waa miimkiina uu ku jira way ku galaysaa buu yidhi saddex magac alle buu xaajada alle wuxuu kaga baarbay wallahi billahi talaahidi eeg waa halka ay ku jirto farshaxanka gabayaagu nin kale oo gabayay ayaa ilaahay buu bariyay markaas waxa soo martay walahu al-asmaa'u al-husna fad'uhu biha ba'ayat qur'aan tirada walahu al-asmaa'u al-husna fad'uhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyada asmaa'ul husna leeyahay ee ku bariya baa leeyahay ku bariya ilaahay marka bariysan ilaahay ya rahmaan ya rahiim ya wad ilaad ku baraydo magacyada ilaahay baa lagu bariyaa bay aayadu qoraysa marka ilaahay bariyso marka gabaygiisuna waa bacli baaba qamiskii baa dhitay boqolkay oo heedaas u haya oo bacli buu ku jira bas 9 waa suuri oo libisay haayeen magacyada 9 ee bacli dalada iskali baa meesha la waa xaraf ku dee meel 9 ka kala buu garan waay wuxuu yiri boqolkaaga magacaya mid kala ya salaam